saad arkaysaanba durduurkan ku jira atoora duureeda noqday soo marka waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga faahfaahiyo marka ugu horeyso intee fiican in lagu socdo in lagu aalmiiteeyo ama in cardio lagu sameeyo banaanka laamiga muxuu ahaay guryaha xaafadaha dhexdooda jiimka dhexdiisa ama aysan ahayn banaanka iyo durduurka geedaha dhexdooda. anigu waxaan doortay hadda geedaha dhexdooda maanta sababta aan u doortana waxay tahay waxaan imaaday meel oo yacni just banaan aan seminaarka ku qaadanin oo magaalada ka baxsan sidaasay tahay seminaarkeena ayay ka mid ahayd inaan barano durduurka waxyaabaha ay caafimaadka u leeyihiin muhiimadda ay u leeyihiin bini'aadanka sababtaas darteed ayaana ku doortay markii aan fahmay dhakhaatiirka hadlaysana la tusay wixii dhan loo faahfaahiyey wax badan aan ka faa'iiday isla markiiba waxaan jeclaystay inaan waqti isaga dhumin oon ku dhaqaaqo adinkana markaas aan idinla soo wadaago waxyaabihii aan ku doortay haddaba maxay uga fiican yihiin banaanka markii laamiga ah ku soconaysid ama xaafadaha dhexdiisa ama jiimka dhexdiisaba markaa ku soconaysid maxay uga fiican tahay duurka oo adigana ku dooratay taas videogan dhexdiisa ayaan idinkugu faahfaahi doonaa insha Allah laakiin marka ugu horeyso xal dhan rooba da'ayay rees udgoon ayaa ii soo carfayo geedaha oo ii soo carfayaan shimbiraha oo ila hadlayaan maskaxiyan ay u fiican tahay wax badan idin faahfaahin doonaa insha Allah alxamdulillah ilaahay ayaa nimcada na siiyay وهجاك هذا بوحنا كتير بس أشي هدايا هاد banaanka ama xaafadaha in lagu socdo ama lagu albiito ama cardio lagu sameeyo maxay uga fiican tahay in duurduurka lagu sameeyo ama geedaha dhexdooda in lagu dhex sameeyo maxay uga fiican tahay dhanka caafimaadka ayaan guda galeynaa marka ugu horeyso waxay u fiican tahay horta dhanka sanbabaha sababtoo ah hawada nadiifka ah ee ka soo baxayso geedaha ayaa qaadanaysa hawo nadiif oo wasakhaysan ayaa qaadanaysa oksijiinkaas waa u baahan tahay jirkaada wuu u baahan yahay muxuu u tarayaa sanbabahaada ayuu aad u wanaajinayaa sanbabahaada dhanka neefta ayuu ka saacidayaa sanbabahaada way caafimaad qabayaan sanbabahaada oo caafimaad qaban dhanka neeftaada ayay u fiican tahay okay taas waa mid xag iska dhig waa mid oo jamaca dadka dhan generalka ay wada og yihiin waa midda labaad markaan u gudbo waxay tahay waxay u fiican tahay stresska madax xanuunka waxyaabahaas oo dhan u fiican tahay waa stress free la yiraahdaa hawadan udgoonka geedaha shimbiraha kula hadlayo maskaxdaada refresh ay sameynaysaa buuqi iyo qayladii maanta dhan ay ku dhex jirtay ka dhex bixisa waxay ka dhigan tahay matalan haddii aad seexatid waxaa ka dhex baxda qayladii iyo buuqi iyo wixii ka dhex baxda markaa soo kacdid fresh ah taasoo maahan sidoo kale waa magaalada markaa soo gashid magaalada markaa ka soo dhex baxdid ee geedaha soo dhex gashid ee hawadaas aad qaadatid markaa ka dhex baxdid waxay ka dhigan tahay markaas soo adoo soo kaco kale ka dhigan tahay hadda kor waxaan xasuustaa anigoo daalan ayaa waxaan soo dhex maray geedo oo shaqo ka soo baxay baabuur ma shaqeynayna Soomaaliya joogna markaas meel geedo saan oo kale taan dhex maray shimbiraha tartiib ay ii heesay soo markaas hurdo i qabato waxaan isla meesha yarta isaga naso hurdaan la dhacay 3 saacadood iyo 4 saacadood aan hurdaay waxaan soo kacay anigoo hadda inaan dhashay aan u maleeyo alxamdulillah ilaahi yacni wuxuu nagu malneystay ayay ka mid tahay annaka ma naqaano waa naqaanaa igantili dadka qaarna ma yaqaanin laakiin kama faa'iideysano sida ilaahay oo nimcada noo sii uguma faa'iideysano taas waa midda kaleeto waxaa waaye marka dhanka dhakhaatiirta way yaqaanin dhakhaatiirta operationka ama qalliinada sameeyo waxay xaqiiqsadeen qofka duurka ama geedaha ku dhex socdo ama ku dhex degan ama yacni badanaa waqtigiisa ku qaato inuu ka fiican yahay dadka kaleeto oo magaalada ku dhex nool markii la eego dhanka nabarka inuu bogsado nabarkii la qalay inuu bogsado dhaqsi ayuu bogsanayaa qofkan oo geedaha iyo duurkan iyo cimiladan quruxda badan iyo hawadan iyo yacni ku dhex jiro oo hawadan iyo oksijiinkan ay qaadanayo dhaqsi ayuu ka daawoobaa dhaqsi ayuu nabarkiisa ka reystaa qofka magaalada ku dhex nool taas ogaada dhakhaatiir walba waa weydiin kartiin qof dhakhtarka ama caafimaadka bartay oo inta ku jira haddii uu ka mid yahay asxaabteeda uu ka mid yahay sharfiita uu kusoo dhaweynayaa mowduucan inaad ka qayb qaadatid wixii dheeraad ah oo aniga iga maqana markaas inaad noogu wada dartisiyo dadkayga ay u wada faa'iideystaan dadkeena dhan ay u wada faa'iideystaan insha Allah qof walba markaas mowduuca aan ka soo hadlo iga aqoon badanna ha ila soo xariiro waan soo dhaweynayaa si aan dadkayga aan u horkeeno waxyaabihii xataa hadduusan u ogolayn inuu markaas oo maaragtay oo kaamirada u soo hor fariisto wuxuu sameyn karaa oo kale codou ii soo duubi karaa anigoo asaga ka soo xiganayo qofkaas
ama yani bas wuu ila soo xiriiri karaa anigoo qofkaas ka soo xiganayo ayaan idiin soo gudbinaa. muhiimaddu waxay tahay inay idin soo gaarto wax faa'iido leh oo dadkiina ay wax ka faa'iidi karaan. intaas kaliya ayaa aniga muhiimadeeda ay tahay. Okay, aniga hadda kaadhigayga kala bar ayuu marayaa, wax yar waa nasta, waa fariistay. inaan fariisto ma ahayn, laakiin videogan inaan duubo ayaa qasab igu noqotay. si markaas magaalada markaan galo ma rabin inaan ku dhex duubo, halkaan aan rabin inaan ku dhex duubo. adinka dartiin ayaan u sameynayaa, sharafeena ii tahay. intaas waan ku faraxsanahay, waan ku qanacsanahay, waxaan jeclahay inaan sameeyo. adinkana waa i dhiirigelisiin, dhulka iga qaadin, madaxa i saaratiin. anigana ma inaan madaxa meel ka sareyso aan idin saarto. waa maqlisiin maano roobaa soo daafay. socodkaygaan sii wadana intuusan igu soo badana xaafadda ka gaarsiinayaa. intaan kulanti dambe aan kulmi doono insha allah. waa walaalkiina Arafat CC oo idinkaga tegayo guul iyo gobonimo iyo isku duubnimo. ilaahay haydan xafido insha allah. qalbigiina fura, maalayacniga iyo waxaas ka taga, isku duubnaada. weliga allaha horumarkaada ka shaqeey. maanta meeshaa joogtid berita ha joogin, kasii soco. facaa ha ka harin, sii soco. guushaada iyo horumarkaada ayaa farxad ii ah, anigana guusheedii horumarkayga ayaa farxad idin ah. waa ogsoonahay. soo marka labadeennaba waa isu baahannahay, midig iyo bidixaanahay kowdhe aan hore u soconno. meesha aan maanta joogno beriyaan joogin, waa ballanteena. dhanka cilmiga kow ha lagu dadaalo, dhanka caafimaadkaada ha lagu dadaalo, ehelkaada iyo dadkaada yacni gacan kaleeto ku qabo oo waa inaa ogaataa, waa inaa ku dadaashaa oo qaraabada aad xiriirisaa. ilaahaada waa inaa u dhowaataa. mar walba waa inaan isxasuusino inaan ilaahayna u dhowaano. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maalinku ha idiin wacnaado, khayraan isku ognahay. jaw.